الله كريم. horta salaanta islaamka isku salaam Soomaaliya assalaamu calaykum. hadda qolooyin caafimaadkan la kulmaayay waswaas ay soo raacay iyo qanaas waxa ayaan daraa marka in la maqlayo malaynayaa in aan nahay dad islaam ah misana aan isku damqanaynin hadda kiisaskan noola soo bandhigay qaybta wacyigelinta igu yeereen runtii ma jeclaysan wax lagu durayo dadkayga ama Somali wax lagu yeelayo marna ma qaadanayo oo shilmaadna aniga dadkayga ma siisan weligeyna ma siisan qaybta iiga aadan wacyigelinta haddii aan qof rabo inaan ku shito ama qof inaan wax ka sheego toos anaa u abbaarayo haddii aan wax waaninayo ama aan dadkayga wax u sheegayna anaa toos u aadayo way jirtaa wacyigelin kuwa caafimaadka ama dhar ha ahaato ama daawo ha ahaato ama noocay doontaad waa la sameeyo oo wacyigelin oo xayisiina oo wax la igu siiyo aad waxa ugu xumaada horta Soomaaliya dad muslim aan nahay oo waa sheeganaa muslimnimada laakiin maanta waxaan qirayaa dad badan oo muslimiin sheegto oo Soomaaliya oo aan lahayn iimaan mug ah because xaasidnimadu umadayda xaasidnimada iyo uqtiga iyo nacaybka iyo iimaanka qalbi qalbi ma wada gali karaan afar case ayaa la haayaa oo afarta case cudurka coronaska ee Soomaali faafinayso gabar yar oo dhalinyaro ah naaga waaweyn ku rideen gabadha way ogaayeen inay cudurka qabaan gabadha kasbay ugu rideen gabar kale oo iyadana Yurub joogta same gabdha kala cazumeen way ogaayeen inay qabaan cudurka kas ayay ugu rideen nin weyn oo magaaladeena joogo oo hadda ay ka sheekeynaysa jaamacadda in la karantiilo wax yaraan hadalkaasna waa hadal Soomaalinimo idinku sheegay waa dhacaysa Soomaalida in laga faano hadalkaas meel ku qora maanta waxay damacsan yihiin reer galbeedka in la sooco because anaga waxaan ogaan jiray aniga haddaan nahay Soomaali weel in xalana waa ka hadlay weelan wax ku wada cunaa waa istaabanaa waa isku soo dhawaanaa waa isla ciyaarnaa yes waa cudurku ku dhici karaa dib uma arka aniga laakiin waxaan dib aniga u arkaa qof muslina oo islaamnimo sheeganayo at the same time qof kale walaalkiis ah kas cudurku ugu daaranayo afar case bay haayeen reer galbeedka laba Yurub ay ka dhacday labana Minneapolis ay ka dhacday hadda jaamacadda ka hadlaysa oo kulan aan la soo yeeshay marka ayaan daro weyn wallahi waswaas qanaas hatta waxaan rabay inaan dukaamadan wax ka soo gato koofeyga hatta from now on koofeyna macba biya caba Soomaali uma dhawaanaysid because afar case saddex dumar samaysay way haayaan labadii gabdhood way cadeen gabadhii kala koomada hadda ka soo baxday waxay sheegtay inay naaga waaweyn oo caruur leh ee gabar yar oo maaragtay oo maskiina oo school jaamacadda dhiganayso oo ehel yihiin ayaa ku daarteen gabadha Yurub joogtana seema lagu sameeyay marka waa ayaan daro annaga haysato qofka muslimka isku sheegayo oo iimaankiisa intaas la yiraahdo balqos hadda aniga cudurka igu dhacay maaha inaan dadkayga iyo ehelkayga iyo walaalahayga iyo dadka muslimiinta aan galaabto waxaan ilaaha keeno subhanahu wa ta'ala inaan markiiba sheego oo aan u sheego dadkayga ama hal inaco ama hal ijeclaado ما قف مسلم أو بريطانيا اللي يودينا هذين تي الله إتماده أو آخر اللي يودينا إنا نقلافته علماءنا ويدين دونتين وأنا ويدين كرتين قف مسلم كاس وردي أو ولكن أنت أوير أو أنت تعبت أما أنت أسوري ده قبل ده يرتع فيري إلهي أمريكي أولي اللي ده وحتى رجعها يجي مارين فيري قنرة تنوح مسكح ذي القيمة فليستي قبل ده صدق لمن لا يتكورن لبعضن يتدوب جير وتكلنا وصدني شنجر إلهك كبد بهذه مركب وحيان درا ويدو كسر صعطة قلوين كان عافمات كحيسين تسميه أدين كيدو كسر صعدان وعيدين شيء
kaysaskan annaga dhaxdeena ayuu noo ahaa awal inaan istaataabanay inaan wax soo sheegnay magaciisayna way og yihiin gaalada way ka dhacday Sweden hadaa rabtiin Google kala Soomaalida maanta ay haysataa Sweden joogto kuwa Europe joogto kuwa Minnesota joogtana hadday ku daba taagan yihiin marka ayaan dara haysato way gooni idin kulligiin waxaana idin sheegayaa qof inaad aamin ma caafimaad qabtaa ha gurigiina joog ma caafimaad qabtaa maanta gurigaada joog adeerka ha ahaado abtiga ha ahaado saaxiibka ha ahaado qof inaad aamin oo wallahi oo billahi oo tallahi weligay shilin ma siisanaa ummadeyda oo cadaabta Allah ay geey laakiin maanta kiisaska aan hayno saddex dumar ayaa faafinay nin weyn afarta way ogaayeen waana ayaan darana haysato marka intaas ay iga aadan inaan idin sheego gurigaaga joog qofnana ha aaminin intaas ay iga soo gudoon halkaas waa hadal nin weyn qof ha aaminin ilaahu muhadda ku dhaho jannada ka imaado oo Soomaaliya gabadha waa 27 jir jaamacad dhigato oo maskiina intay cunto u kariyeen bay siiyeen gabadha hadda koomada ka soo baxday markaas waxay sheegtay inay naagaas cunto siiyeen ay qufqufacayeen waa laga fiican marka ayaan dara annaga haysato waa islaamno ma aha qof islaama qofka ku shidoobo qof ku dilaayo ku ilmaha kufsanaayo islaamada sheegta Soomaalida 99.9 islaam ma aha iimaanna ma leh akhlaaqna ma leh duntoodana waa xunta because qof muslim qofka ku shidoobo bal haday uu dhinto xaquu tagay aakhiro qofkan kalena uu dhinto because waa uu talgashay inaad dishid qofka muslimka waxa ilaah ariga ku keenay ma aha inaad qof muslim kale ku siridid marka waxaan leenahay ummadayada inaad is ilaalisid inaad qofna aaminin aniga intaas ay iga aadan maanta markaan la kulmo la laba ay qabatay awal waswaasul qanaasa ahay xalay cunto igu dambeysay wala ariga dhanaa si kala noqday markay ka hadlayaan wayna og yihiin inaan isdhex galno awal maqaayadaheena ku mashquulsanaayeen awal waxay ku mashquulsanaayeen businesskeena kulli businesseena waa furiin hadda ayaga ka hadlay kulli businesseena dhan waa furiin kuwa gaalada iyo kuwa kala carabta kulli waa xiran annagana wili waa sii wadnaa annagana daba taagan intaas waa iga walaaltinimo iyo sheegid laakiin dadka shakhsiyaadka waxaan leeyahay hadda naftaada jeceshahay qofna ha aaminin gurigaaga joog qofkii ku rabo 20 tilaabo oo Soomaaliya ka dheeraw halkaas wallahi waa runtii waa billahi waa runtii waa tallahi kiisaska ay hayaan annaga kas isugu daaran iyo wax ma aha hata qofka aqoon darro uma geeyay kas ayaa loogu daartay marka nin kale asagana way hayaan oo qof Soomaaliya oo inta dadka u tago ku daaranaay marka waxaan idin leeyahay hadda caafimaad qabtid alxamdulillah alladii an'ama alayna gurigaaga joog intay maan wax u dhacayaan qofka iyo ku imaanin qofna salaamin qofna ha u canin qofna cuntadiisa ha cunin intaas waa iga walaaltinimo qof cunto ku koofeyga sigaar haduu ka go wiliga ha cabin qof iga sigaar badan ma jirto Soomaaliya qof iga koofey badan wallahi 48 saac u dambeysay la laba ahays marka waxaan intaas waxa iga aadan tahay walaaltinimo waa ii yeerteen ina xayisiin sameeyaan rabeen waxa idin sameeyay ma lahan dhahay because aniga ummadeyda shilin ma siinayo intaas waa iga walaaltinimo intaas waa iga waano waxaana leeyahay artistiyaasha Soomaaliyeed dhammaan ciyaartooyda qaar ahaan kuwa basketballka dheelaan inay dadkan u baahan yihiin waxay gelin culimada kuwa isku sheegaan waxaan leeyahay maanta Soomaaliyeed idin baahan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma hasantiin